ciidamada booliiska gobolka Gibiley ayaa maanta gubay qaad tiradiisu ilaa 2,000 oo kiilo oo ay ciidamadu qacanta ku soo dhigeen maalmihii ugu dambeeyay hawlgalla ay qaadeen oo ay ku beegsanayeen qaadka soo galay gudaha dalka Soomaaliland kadib markii ay mamnuuceen gudida ka hortagaya la dagaalanka cudurka COVID-19 ee heer qaran waxaana goobtaasi maanta lagu gubayay qaadkan tirada badan goobjoog ka ahaa barasabka gobolka Gibiley maayarka magaalada taliyaha qaybta iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka booliiska xiraaliyaha gobolka iyo qaar kamida garsoorka maxkamadda gobol degmo Gibiley isla goobtan qaadka lagu gubiyay waxa maanta maxkamadda gobol degmo Gibiley ay ku wareejisay barasabka gobolka 14 gaari oo lagu soo qabtay qaad isla markaasna ay maxkamaddu xukuntay hadalladii halkaas laga jeediyay waxa kamid ahaa gubeyna qaad ciidamada booliiska gobolka soo qabteen qaadkaas oo gaadiidka loo qabtay gaari 14 gaari lagu soo qabtay midba wuxuu sidayba waana saddex nooc qaadkii dawladda loo jiray jabiska iyo taajaro ay isugu jira taajarada waa ilaa 6 jawaan qaadka dawladuna waa 1,500 marduuf ka kale la xidhxidhana waa 300 geed waxaan aad u mahadcelinayaa ciidanka booliiska dawladda hoose iyo gobolkaba gacanta buuxda ay naga siiyaan ciidanka marka iyo maxkamaduhuba waa markii labaad oo baabuur la xukumay lagu wareejinayo hore 8 baan lagu sheegay maanta waa 14 guud ahaan imika maanta inta halkan loo joogo 14 baabuur ayaa lagu qabtay oo dacwadood baa la galay 14kii baabuur waxa lagu wareejinay maanta sidaynu arki doono maamulka gobolka iyo ciidanka booliiska iyo saraakiisha ciidanka booliiska waxa maxaabiista la xukumay guud ahaan 14 ka waxay gaarayaan 22 maxbuus meelahaas waxa ka horeeyay 8 baabuur gaadiid ah iyo maxaabiis hore oo xabsiga loo diray oo la xukumay oo 13 meelaha gaaraya runtii waxaan arkaynaa in hantida lagu qabtay iyo gaadiidka lagu qabtay la wareegayo waxaan ilaa xalay arkayay runtii oo muuqatay dad lahaa dad masaakiinaba xoolahoodii la qaadanaya qaranka cid ka miskiinsan ma jirto in ku wareejinaya 14 baabuur oo lagu soo qabtay qaadka sharci darrada ay la joojiyay kaasoo ay mamnuuceen gudida heer qaran ee la dagaalanka iyo ka hortagga COVID-19 halka waxaynu u joognaa maanta gubitaanka la gubayo jaadkii kontrabanka ahaa ay boolisku iyagoo fulinaya awaamirtii gudida heer qaran ee COVID-19 ay ku soo qabteen gobolka Gibiley sidoo kale waxa lagu la wareegayaa inuu kula wareeganaa gaadiidkii qaadka sharci darrada ah runtii lagu soo qabtay ugu horeyn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa booliska oo fulitaanka ay fulayo go'aankaasi iyo badbaadada shacabkooga 24 saac heegan ugu jira 8 baabuur hore maanta hore iyo 13 eedeysana halkan lagu xukumay maantana 14 gaadiid ah iyo 22 baa halkan lagu xukumay intuba waxay haayeen dambiilayaal qarankan ee ku gafay awaamirtii ay soo saartay ee gudida ka hortagga sharciguna waa la mariyay booliiskii way soo qabteen howlgal ballaaran bay sameeyeen xiraalintiina waa ku ogtay